wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland ayaa waxa uu dawooyin ku wareejiyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka oo loogu talagalay cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood isagoo sidoo kalena wasiir ku-xigeenku ku wareejiyey dawooyinkaasi maamulka gobolka Sool. Munaasabad loo qabtay wareejinta dawooyinkaasi ayaa ka qabsoontay gudaha cisbitaalka magaalada Laascaanood waxaana ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guryeynta Soomaaliland, wasiir ku-xigeenada wasaaradaha qorshaynta iyo caafimaadka, maamulka gobolka iyo degmada iyo sidoo kale maamulka cisbitaalka guud ee magaaladaasi Laascaanood. ugu horreynna waxaa goobtaasi hadallo kala duwan ka jeediyey maamulka wasaaradda caafimaadka ee heer gobol iyo heer qaran iyo sidoo kale maamulka gobolka. daawadan ay xukuumadda Soomaaliland ugu tala gashay cisbitaalka guud ee magaalada Laascaanood waxaana hadalladoodii ka mid ahaa daafurkan wuxuu daaran yahay mashruuc soo socday in muddo ah oo ahaa dhisme iyo hawl badan oo ka socday wasaaradda caafimaadka gobolka Sool oo ay soo gaadhay dawadii agab dawo ah oo shixnad dawo ah oo ay wada hay'adda SDF sanduuq laga maalgeliyo suuqa SDF in maanta lagu wareejiyo oo lagu wareejiyo wasaaradda caafimaadku ay kala wareegto dawada SDF iyo wasaaradda qorshaynta ama xanuun dawooyinka ka hortaga jeermiska oo tayadoodu aad u sareyso runtii oo laga keenay meelo fog oo maaragtay Yurub iyo laga keenay ay u badan yihiin hay'adda ADA ayaa samaysa dawooyinka dawooyinkan la keenay soo iibisay waxa kale oo ku jira dawooyinka xanuun biyaha noocyada dawooyinku ay ka kooban yihiin oo dhan bay ka kooban tahay itemyada ay ka kooban tahay waa ilaa dhowr iyo 70 ilaa 70 item inay taan filaya 79 item actually ay ka kooban tahay laakiin intani horta waa facekii koobaad waxa jiri doona ku labaad iyo mid saddexaad insha Allah oo maaragtay qalabkii iyo wixii kamid yihiin oo ka dambeyn doona laakiin waxay noqon doontaa uun saan u maamulano intan haddaan intan ku maamulkeedu inaga xumaado waxay noqonaysaa waayo waa la inala socdaayo isla socod ayaa jiri doona iyo xisaabtan ayaa jiri doona insha Allah waxaanu soo dhaweynaynaa dawada naloo keenay ee cisbitaalka loo keenay waayo waxaanu ku soo dhaweynaynaa cid kasta oo wax noo qabanaysa inaanu soo dhaweyno xaq bay noogu leedahay maamulka caafimaadkana waxaanu faraynaa sidii loogu talagalay inay dawadaasi u baxdo waxaan kaloo ku darayaa dhinaca daawada annagu gobolkani baahi badan oo caafimaad buu qabaa dagaal ka jira miisaan baa saaran wasaaradda caafimaadka oo wasiir ku-xigeenkii ka joogo maanta annagoo horeba wasaaradda ugu mahadnaqnay itaalkeeda aanay dawadu naga kala joogsanin in dadaal dheeriya nolo sameeyo maanta farxad weyn bay noo tahay inaanu ka soo qayb galno xafladan qiimaha leh ee lagu wareejinayo dawadii isbitaalka Laascaanood dawada oo sida la sheegay dawo standardkeedu sareeyo marka koowaad cid alaale cidii gacan ka geystay waan ugu mahadnaqaynaa waan ugu hambalyeynaa isuduwa caafimaadka iyo agaasimahana waxaan ka codsanaynaa in dawada sidii lagu talagalay ay qorshaheedu noqdo baan inaan u rajeynay hadii la haydmo waxa kale oo farxad noo soo caaqilku sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorshaynta oo aan saaxiibna nahay maanta halkan ugu la sugan horena xagga hay'adaha aan uga wada hadalay inuu maanta halkeena la fadhiyo waxaan rajeynayaa wixii karaankiisa say wasiir ku-xigeenka caafimaadkuba inaanay naga hagranayn maanta ahmiyadda aynu isugu nimi ugu horeyn laba shay baa muuqda oo labaduba intii kale ee mashruucani socday wixii wanaagsanaa ee la qabtay ama waxa ku soo jiraan inaynu xusnaa waa muhiim labada mashruuc ee runtii faa'iidada waxa weeye mashruucan waxyaalihii ugu ballaarnaa SDF ay waday waxaa ka mid ah dawadii oo shaygii ugu muhiimsanaa oo sidaa la sheegay dawladdu soo iibsay SDF oo si gaar ah loo dalbay oo tayadeedu sareyso oo shayga ugu dambeeyay meesha projectigan uu socday mashruucan socday shaygii ugu muhiimsanaa inaynu dawadii horta la wareegno dhakhtarkii la keenay waa ilaahay mahadiyey intii ka qayb qaadatay doonoriskii deeq-bixiyaashii naga caawiyey SDF dawladda iyo maamulkii wasaaradaha gacanta ku hayay intuba ammaan bay madan yihiin runtii maamulaha mashruuca horumarinta caafimaadka ee gobolada bari ee Soomaaliland mudane Faysal Baraade
ayaa ka warbixiyay xaaladda guud ee dib u dhiska dayactirka iyo qalabaynta lagu sameeyay cisbitaalka guud ee magaaladaasi Laascaanood waxaana hadaladiisii ka mid ahaa mashruucii dhismaha ugu horeeya componentska dhismaha ugu horeeyay boqolkiiba 99 wuu dhamaaday waxa harsan xal yar oo u badan biyihii macaana oo qalabkoodii iyagana uu yimi ayaa ka harsan waa xagga dhismaha maxaa la yiraahdaa biyahaas beebabkii oo dhan waa la geliyay maxaa la towerskii la saaray storage-ka taangiyada biyaha waa la dhameeyay qalabkii laabkii biyaha lagu macaaneynayay wuxuu yaalaa maxaa la yiraahdaa dekada wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka oo reedi uu approve gareeyay cashuur dhaafkii kuwaasina wadin dal 3 cisho inagu soo socdo way soo gaareen cusbitaalka dawadii way timi intii ugu horeysay inkastoo ay wax kooban tahay laakiin intii ugu horeysay way timi waa essentialkii drugska ahaa ee kiiga antibioticska ugu muhiimsanaa wayna soo socotaa intii badnayd iyo qalabkiiba way soo socdaan intaasi kadib waxa hadalada iska daba qaatay wasiir ku-xigeenada wasaaradaha qorshaynta caafimaadka iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guryeynta Soomaaliland waxaana hadaladoodii kamid ahaa waxa goobtan aynu ku sugannahay inuu joognaa inaynu ku wareejino wasaaradda caafimaadka dawooyinkii loogu talagalay cisbitaalka Laascaanood 3 darajo ama darajadii saddexaad baynu maanta halkan u fadhinaa darajada koobaad waxay ahayd dhisidii cisbitaalkan Laascaanood oo ay runtii dawladdu dhistay sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee SDF waa sanduuqda dawladdu ay leedahay maamulkiisa hagidiisa iyo ka howlgelintiisana wasaaradda qorshayntu ay u igman tahay marka waa shaqo ay dawladdu qabatay marka dhisidii baa koow ahayd waxa laba ahayd tayeynta tababarka iyo mushaharsiinta iyo dhaqaatiir keenida cisbitaalka oo iyaduna runtii ay soo dhamaatay oo la tababaray dhaqaatiirtii mushaharna looga qoray sanduuqa horumarinta Soomaaliland waxa maanta aynu fadhinayo tii saddexaad ahayd wareejintii dawooyinka loogu talagalay in lagu isticmaalo bulshada gobolka Sool ay runtii cisbitaalka ku isticmaasho maalin walba waxa qaybta afaraad oo iyaduna bilaha soo socda aanu hadii ilaahay sidan oo kale u wareejin doonaa dhammaan qalabkii cisbitaalku yeelan lahaa furniture-kii iyo dhammaan qalabkii oo dhan maalinba meel baynu soo joognay kaalin baynu kolba ka soo gudbaynay maanta waxaynu joognaa in aynu cisbitaalkii gobolka Sool intaynu dhisannay dawooyinkiisina aynu keenay kaasoo lagaga maarmi doono ama lagaga kaaftoomi doono inay dadka bukaanka loo qaado sidoo gudoomiyuhu sheegayay meel 700 kiiloomitir u jirta magaalada Laascaanood farxad weyn bay noo tahay inaanu maanta idinla joogno magaalada madaxdii gobolka Sool ee magaalada Laascaanood aad iyo aad baanu dhamaantiin idinkoo isku duuban idinka mahad celinaynaa soo dhaweyntii qiimaha lahayd ee aad noogu sameyseen magaalada koonaheeda iyo soo dhaweyntii aan la iloobi karin ee noo sameyseen maanta waxaanu idinku nimi safar shaqooyinkaanu idinku nimi waxa kamid ah oo ugu weyn tan aynu imika u fadhino oo ah inaynu soo gaadhnay gabagabadii mashaariicdii horumarinta caafimaadka ee wajigii hore ee mashaariicda SDF laga hirgelinayay ee uu lahaa gobolka Sool maanta waxaynu halkan kula wareegaynaa waanu wasaaradda qorshaynta qaranka uga mahad celinaynaa inayna soo gaadhsiiyeen oo ay si fiican u soo maamuleen daawooyinkii inoogu jiray inaynu helno gobol ahaan isbitaalka magaalada Laascaanood qayb baa inoo hadhay dambe qalabna wuu inoo harsan yahay laakiin guud ahaan waxaan idin sheegaynaa waxa weeyaan ka wasaaradda horumarinta caafimaad ahaan wasaaradda horumarinta caafimaadku muddooyinka ugu dambeeyay muddada sanadka imika ay jirto xukuumadda madaxweynaha ee qaranku uu hogaaminayay mudane Muuse Biixi Cabdi waxa culays weyn la saaray sidii loo baraarujin lahaa oo loo dardargelin lahaa cisbitaaladii waaweynaa ee aynu lahayn waxaan halkan ka oranayaa in kelmada taasoo ah gobolka Sool waxaa ka socda Laascaanood dhaqdhaqaaq badan oo aan been ahayn waxaan wax ka ogahay wasaaradda caafimaadka waxa ka socda oo nimkadanba u fadhino waxaan ogahay wasaaradda qorshayntu waxa ay wada ay SDF iyagu wadaan waxaan ogahay wasaaradda xanaanada xoolaha oo istuwaheedii Rashiid fadhiyo waxa ka socda waxaan ogahay wasaaradda waxbarashada waxyaalo badan oo ka socda oo Laascaanood aan midna ka baxsanayn waxaan ogahay
wasaarado badan oo kale oo gobolka ah oo kulligood ay ka socoto mashaariic gobolka Sool ah oo laascaanood ah meeshii dhaqdhaqaaq ka socdo ee wax sidaa uga socdaan kolley waxay leedahay inay sii kordha uune wax dib u dhaca oo ka muuqda ma jiro. gabagabadii munaasabadana waxaa si rasmi ah uu wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorshaynta ugu wareejiyay daawadaasi wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland isagoo sidoo kale wasiir ku-xigeenka caafimaadkuna daawadaasi ugu wareejiyay si rasmi ah maamulka gobolkaasi Sool.